Howlgalkan oo ahaa mid ballaaran ayaa waxaa laga sameeyay xaafado ka tirsan degmada Yakshiid sida Jungle, Hotel Guuleed iyo Caymiska oo saaran wadada warshadaha. Gudoomiyaha degmada Yakshiid Mudane Axmed Cabdulaahi Cariif iyo taliyaha booliiska qaybta bari Korneyl Cali Calisow ayaa horkacay howlgalkan oo ay fulinayeen ciidamo isku dhaf ah oo iskugu jira booliis iyo nabad sugid. Intuu howlgalku socday waxay ciidamadu amnigu ay gurgur u baareen meelaha ay tageen iyagoo gacanta ku dhigay rag ay ugu shakiyaan falaamin darro. Taliyaha booliiska degmooyinka qaybta bari Korneyl Cali Calisow ayaa tilmaamay inay ka shaqeynayaan sidii degmooyinka bari ee gobolka Banaadir amnigooda loo xaqiijin lahaa. howlgal qorshe socday ayaantan loogu talagalay in bulshada amnigeeda lagu xaqiijiyo ayuu ahaa waana mid awaamiir ka timiday madaxda naga sareysa oo dhan walba waxa intaas xigta waxaan ku duulaanahay cid kastoo shacabka dhibaataysan u geysata midka dhaca midka dila midka qarxiya midka xada midka xooga intaasba uma kala roono shacabka waxaan leenahay oon rabnaa uga digaynaa bulshadana aan rabnaa inay nagala shaqeeyaan war cidka ku dhibaya midka ku dhacaya wax soo ka dhamaanay soo sheeg meel alle meesha caqabad ku jirto waana howlgal joogta waana howlgal loogu talagalay in amniga lagu xaqiijiyo laguna weeqo cid kastoo amniga caqabad ku ah iyo cid kastoo shacabka dhibaato ku haysa waxaan rabnaa looma dul qaadan doono waxyaabihii maalmahan socday waa ka hortag iyo ka daba tag iswata waxaan rabnaa cid kastoo amni darro ka shaqeynaysana waxaan uga baaqaynaa halkaan ha ka waantowdo inta aan gacanta shacbigu aysan soo qaban cid kastoo amniga caqabad ku ahna waxaan leenahay guul ka keeni meydida ummadana ha dhibin adiguna hays dhibin haddaad isla heedeen waa maqan yihiin iyo waa baqayaana waana kan waana nimid laabana ma doonno ilaa aan mawdka ka haleelno shaqada nolon dirana siday taan u waajib gudanayna madaxda naga sareysana waxaan leenahay hufnaan iyo howlkarnimo ayaan la imaanaynaa awaamiirta aadna siiseen dhammaan qaybta bari oo gudoomiyaasheer iyo degmooyinkoodii iyo saldhigyadoodii isku duubanna waxay bahwadaa ku noqdeen shaqo kasta. Dhanka kale gudoomiyaha degmada Yakshiid Mudane Axmed Cabdulaahi Cariif ayaa waxa uu sheegay in howlgalkan uu ahaa mid qorsheysan isla markaana uu noqon doono mid joogto ah oo lagu sugi doono amniga xaafadaha kala duwan ee degmada Yakshiid. Caawa waxaa noo bilaabanaya operation-kii taliyaha lagu soo amray oo aheeday taliyaasha iyo gudoomiyaasha iyo dhammaan bulshada qaybta bari oo iskarabsanaysa inay ka shaqeyso wax kasta oo amniga lidi ku ah oo keeni kara in amni darro ay dhalato. sidaas darteed caawa operation-kaas noo bilaabanaya mana ahan wax joogso doono wuxuu noqon doonaa wax socod doona waqti aad u tiro badan. caawa waxaa noo daah furan operation-kii la dagaalanka arrimaha amni darrada keena qayboora kala duwan wuxuuna socon doonaa operation-kan caawa noo bilowda waqti dheer marba meeluu ka socon doonaa bulshada ku nool qaybta barina waxaan ka codsanaynaa meel kastoo ka shakiyaan wax kastoo ka shakiyaan oo amni darro keeni kara meelaha ay isleeyihiin daraagiska lagu gadaa meelaha ay isleeyihiin ciyaal warafka jooga meelaha ay ku tuhmayaan wax amniga lidi ku ah inay ku jiraan inay maamulka la soo xiriiraan saldhigyada la soo xiriiraan waxaa jira barnaamij bulshadu ay la soo xiriirto leedahay 991 inay la soo xiriiraan ay sheegaan saldhiga ay tahay waaxda ay tahay xaafadda ay tahay wax meesha ay rabaan inay wax ku tuhmaan oo hay'adaha amnigu ay ka howlgalaan. caawa soo noogu bilowda waaye shaqadan waa wadi doonaa intii dalkan gaar ahaan gobolka Banaadir uu amni ka naqanayana operation-ka caawa bilowda wuxuu noqon doonaa midaan kala joogsan oo sidiisa u socda intii boqolkiiba boqol gacanta looga dhigayo amniga gobolka Banaadir. aad iyo aad u mahadsantihiin guuleysta shaqada operation-kuna caawa soo noogu bilowda ayuu joogto u noqon doonaa ilaa laga gaaro gobolka Banaadir guud ahaan inuu amni noqdo. aad u mahadsantihiin. Mukhtaar Aweys, Banaadir TV, Muqdisho.